عينين وعردينا هلا يسيو ورفع في مات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta hadday kaaga runtahay taariikhdu waxay dul hoganaysaa 7 bishii Agoosto 2019 halka saacaduna waxay soo xangagaabataba baroosinka ay dhigatay 4tii galabnimo oo buura ah hagaag waxaan fadhiyaa xafiiska maamulka Yerjameli Specialist Hospital xafiiska ugu weyn waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed meel doontaba ha joogtay inaan soo gudbiyo fariin taasoo ku wajahan xanuunkii dhawaan igu dhacay iyo sida uu ii daweeyay isbitaalkan caalamiga haddaba barnaamijka maxaa la yiraahdaa barnaamijka waxa la yiraahdaa Yerjameli baa i dabeebay ilaahayna wuu i daweeyay waayo barnaamijkeeni Yerjameli yaa i dabeebay ilaahayna wuu i daweeyay alla ilaahay an inoo guda galo waxay ahayd 27 bishii July 2019 markii saacaduna ay cagacageynaysay 3 AM markii la iga dajiyay isbitaalka Yerjameli Hospital aniga oo kooma ku jira ka bacdina wax yar waxaan ogaaday in la iga dajinayo gaari baraada oo yaa wada gaariga alla ilaahay waxa waday Muuse Jaamac Abshir Dhoore Soomaalidu waxay wada taqaanaa Abshir Dhoore inuu ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wasiirkii gaashaandhigga ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wiil awow yahay oo la yiraahdo Muuse Jaamac ayaa gaariga igu waday wuxuuna igeeyay Yerjameli Hospital aniga oo 2 saacadood ka hor ilaahay ka baryay inuu ilaahay ugu hagaajiyo isbitaalka ugu tayada fiican magaalada Muqdisho hagaag haddaba dadka i dhageysanaya ama i daawanayo Yerjameli macnaheedu waa maxay waa kaalmadii gacanta af Soomaali Ingiriisna waxay ka noqotaa help hand hagaag isbitaalkan waxaa la dhisay ama dhismihiisu u socday 2006 ilaa 2011 waa Yerjameli International Specialist Hospital laakiin shaqada wuxuu bilaabay 2017 isagoo shaqada ku bilaabay hooyada iyo dhallaanka hagaag isbitaalkan caalamiga ah ee aniga lagu daweeyay baa Yerjameli Hospital waxaan ku arkay arrimo badan oo cajiib ah oo dareenkayga soo jiitay waxaa ka shaqeeya dhowr boqol oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo aad u qiimo badan ala hadalkayga u fiirso oo aad u tayo fiican oo isbitaalkani marka uu shaqaalaha qaadanayo aqoonta marka laga yimaado structure-ka marka laga yimaado nadaafadda iyo labiska iyo soo jiidashada marka laga yimaado wuxuu isbitaalkani tixgeliyaa waxa la yiraahdo aqliga soo dhaweynta iyo bani aadamnimada qofka waxayna ka mid tahay arrimaha isbitaalkan uu shaqada ku bixiyo isbitaalkan waa Yerjameli International Specialist Hospital Turki baa dhisay wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho daaqadiisa adigoo taagan haddaad tuurya la beegsato badana haddaan idhaahdo waxay ku dhacaysaa badda gudaheeda waxba igaga xumaan maayaan weliba aan kuugu daray hadday kaaga runtahay 55 dhakhtar junior iyo senior baa isugu jireen yaa ka hawlgala halka weliba hadday kaaga runtahay 65 neersisna ay ka hawlgalaan ma intaa kaliya alla ilaahay maya Yerjameli International Hospital hadday kaaga runtahay bal hadda eeg 5 dhakhtar oo qalliinka ah ayaa jooga oo uu ku jiro kii aniga ay qalay ilaahay amarkii waa Tony oo u dhashay dalka Syria hagaag 5 dhakhtar ee qalliinka ah waxaa caawiya 5 dhakhtar oo soo kobcaya oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed waxday kaaga runtahay hagaag haddaba haddaan idhaahdo International Specialist Hospital waa Yerjameli dhammaan isbitaalada kale ee magaalada ku yaala uu ka duwan yahay waxa laga yaabaa markaaba inaad su'aasho muxuu kaga duwan yahay
qalabka la isticmaalo uu kaga duwan yahay oo qalabka laga isticmaalo Yerjameli International Specialist Hospital waa Yurub iyo Turkish sida uu dhayahay haddaan ku idhaahdo International Specialist Hospital waa Yerjameni uu ka duwan yahay dhammaan isbitaalada kale ee magaalada ku yaala waxa laga yaabaa inaad tiraa abwaan waxyaabuhu kaga duwan yahay bal wax iiga sheeg aan kaagaba sheego ICV aan idhaahdee alla ilaah halmaan hadal kuma jiree ICU wax la yiraahdo isbitaalkani leeyahay waa intensive care unit bal hadee neonatal wax la yiraahdo isagana leeyahay neonatal maxay tahay waa ilmaha meesha lagu kobciyo marka uu ku sugan yahay xaalad halis ah isbitaalada kale ee magaaladu malaha kan iyo waxa leh digfeer dadka qaarkii marka hadaba ay iska kaftan walaal wadaagayaan waxay isbarbar dhigaan Yerjameli Hospital iyo kee horeeya isbitaalka la yiraahdo digfeer marka u dambeysana waxay isugu biyo shubtaan alla ilaah tayada wax waliba waa taye waxa ku horeeya international aan idhaahdo waa Yerjameli Specialist International Hospital waxaasan soo sheegay oo dhan mid kale oo dheer yaa jirta oo uu kaga duwan yahay isbitaalkan Yerjameli Hospital oo maxay tahay waa wax la yiraahdo centralized oxygen qol walba oo gasho oxygen baa ku rakiban bal hadda hadalka u fiirso waxaasoo dhan marka la isku soo wada duubo Soomaalidu waxay tiraahdaa run sheeg wax ku maqraati furma weydid haddii aad istiri malaha abwaanku isbitaalkii lagu daweeyay ayuu xayeysiinayaa bal adiguba imo oo indhahaaga ilaa qof wax kala garanayaa tahay bal ku eeg isbitaalkan weli qof yimid kii tiisu gashay waa meesheeda oo kullu nafsan daa'iqatul mawt qof yimid oo isbitaalkani uuna dabiibin marka uu dabiibo ilaahay uuna daweyna weli lama arag aan kuugu celiyo qof kasta oo xanuun qaba oo Yerjameli International Specialist Hospital lagu dabiibo ilaahay uu daweeya waliba isku soo wada duuba waxaan idinka ilaaway dadka bukaanka ee isbitaalka la keeno lacagta laga qaado waxaa loogu siiyaa mushaar dhalinyarada u adeegta iyo dhakhaatiirta waana waxa afka qalaad lagu yiraahdo nan balaag hadaan kuugu celiyo dadka bukaanka ee isbitaalka la keeno lacagta laga qaado waxaa dib mushaar loogu siiyaa dhalinyarada ka shaqeysa isbitaalka waana waxa afka qalaad lagu yiraahdo non profit cost recovery barnaamijkeena mid la mid ah intaan ku kulmi doono ilaahay idamki waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saddex ninna mahad baan u celinayaa oo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa abaal nin kala badan nin gudaasa yar waa dhakhtarkii qalay toon Allah xafido wiilka la yiraahdo Saacid iyo Dr. Cabdirashiid waa dhakhtarka hadda kursigiisa ku fadhiyeen xafiiskiisa joogo isagoo aad u jeclaa maadaama aan maanta ka baxay isbitaalka inuu isagootiyo qalliin ama aan idhaahdo bukaan ayuu ku mashquulsan yahay una ila soo hadlay wassalaamu calaykum wa mar labaad wa rahmatullaahi wa barakaatuh ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka